okay walaalayaal pie graph-ku waxa weeyaan waa wuxuu ka mid yahay graafyaasha ugu caansan oo aad loo isticmaalo statistics aad aragteen waa extensively used marka purpose-ka loo isticmaalana waxa weeyaan in lagu tuso the relationship of parts of the whole by visualizing and comparing the size of the sections macnaha waxaa rabaa in lagu tuso parts of the whole markaad wax weyn hadeysatid laakiin aad rabtid inaad fiirisid qaybihiisa waxaad u baahan tahay pie chart inaad sawiratid سواء كان مركز the variable is nominal or categorical بدنا data la isticmaalay waa maxay waa sida kuwan soo marnay waa categorical inta hadaan soo marnay laga bilaabo paragraph pareto chart samayn garan waxa weeyaan badanku waa categorical data categorical hatta time series ku jirto marka a pie graph is a circle that's divided into sections according to the percentage of the frequencies in each category of the distribution samadan gar marka waxa loo qaybinayaa into sections ayaa loo qaybinayaa ama into sections ayaa loo qaybinayaa mid kastaba waxa weeyaan depending on frequency-giisa ama value-giisa daatada inta noogu sawiran ayaa waxa la dhahaa frequency ay u bixiyaan samadan gar inkastoo macnaheedu uu marmarka qaarkood yahay ay matalayso lacag مثلا ama distance ama waxyaabo taas waxa loo bixiyaa ayadana frequency soomaalidan garan marka depend on frequency-geeda haduu weyn yahay section-ka ay ku lahaanayso pie chart-kana weynaanaya haduu frequency-geedu yar yahayna way yaraanaysaa soomaalidan garan marka ada tusaalahan aad aragteen waxaan haysanaa snacks waa cuntada tan khafiifka ah iyo pounds soomaalidan garan snacks pounds marka potato chips waxa weeyaan waa 11.2 pounds midan kale tortilla chips waa 8.2 pretzel waa 4.3 popcorns waa 3.8 snack nuts waa 2.5 so marka kana ugu yar snack nuts ugu yar marka aad u fiirsateen pie chart kan waxa weeyaan waxa ugu yar snack nuts marka snack nuts waa cagaar so marka cagaarkan aad arkaysiin waa snack nuts kana idin weynaysiinaya marka snack nuts aad aragtiin waa cagaar waa midka ugu yar waayo frequency-giisa yar popcorns ayaa ku xiga waa jaalo cagaarka markaad fiiriso waxa ku xiga jaalo waxa ku sii xiga 3.8 waxa ku sii pretzels waa midka guduudka tortilla chips ayaa 8.2 ku sii xiga waa midkan aad aragteen oo brown-ka waxa ugu weyn tabcan waa potato chips because waa 11.2 marka darteed daatadaada inaad fiiriso say u kala weyn yihiin waxa weyn pie chart-kuna waxa weyn way ku tusaysaa pie graph-kan ka wada ma pie chart-na waa la waxay ku tusaysaa inaad isbarbar dhigtid soomadan garan way fiican tahay sababtan waxyaalahan idin tusayo dhan waxaan rabaa inaad hadhowdii baad isticmaali doontiin daatadaada markaad taxliilinayso waad u baahan tahay inaad si fiican u taqaanid inaad sidaa u sawiran lahayd iyo chart-kaad dooran lahayd yani iska dooran maa waa inaad taqaanaa chart-yaashan wax loo isticmaalo iyo habkaad u isticmaali lahayd markaad saan ku sawiray midkan waa fududahay iyadana waxaad imanaysaa inta kanaad highlight garanaysaa totalka darabo kuma daraysid intaad imanaysaa waxaad highlight garanaysaa daatada tan iyo labelkeeda kadib waxaad ku dhufanaysaa insert kadib waxaad aadaysaa meeshan soo martiin chart-kan la dhaho pie chart-ka waa tan aad isticmaalaysaa haddaa rabto 3D chart kasta waxay leedahay 3D marka 3 dimensional waad isticmaalaysaa laakiin aniga tanaan ka jeclahay tan hadda yar fudud oo la fahmaya marka taasaad ku dhufanaysaa soo martiin way noo soo baxday daatadii laakiin waxaan rabnaa inaan isticmaalno daatadeena tan marka 1 2 3 da ma rabno marka saad yeelaysaa waxa weeyaan waad right click garanaysaa marka select data ku dhufanaysaa marka waxaan rabnaa inaan bedelno horizontal category-ga inta imow kadib waxaad ka bilaabaysaa potato chips ilaa laga gaaro snack nuts kadib waxaad leedahay okay samay waqti turba way isbedeshay samaydan garan inta aad heshay inta kale waxa weeyaan waa kaliya waad weynaysiinaysaa kan sadarta inaad weynaysiiso inta aad aadaysaa home
كده واحد قدريسا سايسك سواء ذكر مركب وكوا نوصو بحي دارت إن تبدش كلرك وتبدل لك كرتا واحد كله فنيسا ماشن واحد هذا يسا فيل كلر ماشن هذا يسا وتبدل يسا دارته ماشن بلوغ هدونك وعجيبين بلاغات كده يسا سوري أيضا نبغى بلاغنا دي نقطة سواء كلام مركب المهم ما دارت إن تقيب بدش وتقيب وتبدل كرتا أيضا بعد كله فني تن هذا روينا كده جدود واحد هذا يسا أيضا كله فنيسا جدود بيكانوا قنيسا تن هذا روينا بدله إن كده داروينا كده بلوغات كده كرتا دارو تاني بدله وحن كده كرا براون كده أوكي المهم وحويان صدرتين مايكروسوفت إكسل وح فربضان يكسينيسا أوبشن فربضان أدلات هذا كون نقشة ديسو كو قرحيسو سايز كده بديشو أدي ريسو كل بس أدربتين مركب حرجينيا إناد قراتين هبقى دوسوي كرتين باي جراف إيو waxa loo isticmaalo 10 ugu dambeeyaan u maleynaa ku saabsan graphation waxa weeyaan steam and leaf plot kaasna waad idin ku sii doona 10 ka soo socda fadlan kaasna barta la share gareyna walaalihiin ka faa'iideysan kara 10 waa iska free muhiimadu waxa weeyaan inaad baratiin aad taqaaniin habka loo isticmaalo chat yaasha